يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد أطوادا شداد أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد ليكن يومك للشعب. الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaad kusoo dhawaataan casharanteenii imtixaanaha inoo ahaa ee barnaamijkeena ku bara kombiyuutarka af soomaali. maanta waxaanu qaadanaa casharkeeni 8aad waxaanaynu gabagabo kusoo dhownahay barnaamijkeena Microsoft Office Word. halkaas inooga harsanaan doonaan 1 cashar ilaa 2 cashar. waxaanu si toos u bilaabi doonaa haddii la yiraahdo barnaamijyada kale hadba mid marka uu dhamaado kale ayaan ku xigsiin doonaa. marka maanta aynu bilaabana casharkeena ugu horeyntii barnaamijkeenu soo kacsano waxaanu tegaynaa qaybtii sidaynu naqaanay halkan laba hab aynu samayn karnaa. ama xaggan aynu ku qori karnaa ama isla halkan intaan imano xaggan aynu ka dhex baarayna aynu ka dhex raadin karnaa. haddii halkan inoo yeelana halkan aynu kasii dhex dooranaa. markaad soo furatid blank document ayaad sii dooranaysaa saasay kugu soo baxaysaa. casharkeenu qaadan doonaa waxa uu ku xiran yahay casharkii hore waxaana uu yahay isla table. marka table marka hore sidii waxaanu soo baranay loo soo gelinayay table meesha isla markaantaasina loogu dirayay qoraalo iyo tirooyin. maanta waxaanu qaadanaa sida color loogu sameeyo khaanadaha ama khaanad gooniya ama row ama column dhamaystiran saddexdaaba iyo weliba sida qaab xisaabeed oo kale loogu dejiyo. ugu horeyntii waxaanu soo furanaa table yar markaa magacaan baynu ku qoran doonaa iyo tirooyin si aynu u eegnaba. marka waxaad tegaysaa insert kabacdi waxaad kasi doonaysaa groupkan tables kadib waxaad doorataa table intaad doonaysa xaggan ka jeexo amase halkan insert table leh kabacdi kolomyadaadu intay noqonayaan halkaa geli. waxaan u baahanahay tusaale ahaan 5 column iyo share intaasaynu eegnaa. intaas markay noo soo samaysanto waxaan doonaynaa ka dhinacan maadaama magacaan aynu ku qorayno inaynu yar weynaysiisano si magacaanta uu inoogu qaado. qoraalkeena markaynu soo qorano waxaynu rabnaa inaynu wadartan isugu geyno saddexdan maado Soomaali, Carabi iyo Ingiriiska. marka wadarta guud ama total waxa loo yaqaan inaynu soo saarnaa. tusaale saddexda arday tirada badan karaan oo inta u baahan tahay ka dhigan kartaa intaan tusaale u soo qaadanaa. waayahay waxaad tegaysaa marka ugu horeysa layout sida maanta la soo sheegnay waxaa jira laba layout midna waa kan midka kalena waa kan. marka kan table-ka ayuu la socdaa waxaana ku sii jira table tools khaanadaas ay si gaar ah ula socdaa. sidoo kale waxaa jira laba design midkan iyo midka kale. marka ha isku qaldin waxaad dooranaysaa markaad table isticmaalaysid layout-kan kad ku jira table layout-kaas ee halkaas sare noogu qoran. kabacdi markaad layout-ka dooratid waxaad imanaysaa group-ka loo yaqaano data. intaa kadib waxaad ka doorataa halkay ku qoran tahay formula. waxaad tiraahdaa formuladeedu waxay la mid tahay equal sum isku geynta left waxyaalahan tirooyinka xaggan ku qoran dhinaca bidixdiisa u keenkee. waxaad oran doontaa okay baad leedahay. marka halkaa jawaabta nooga soo baxday waad hubin kartaa.
waxaad ku ogaan kartaa calculator-kaaga adigoo la soo baxa oo akhriyo bal waxaan inay sax yihiin iyo inay qalad yihiin. waxaynu niri 95 plus marka natiijadu saasay noqonaysaa. iminka tusaalaan haddii la iska rabay 300 ardaygan 20 buu dhimay baad leedahay, yani ama intaasaad weydiinaysaa. ardaygan labada aynu xisaabino, waxaynu tegaynaa halkii baynu soo noqonaa layout baynu dooranaa kabacdi formula. halkan iminka way isbedeshay meeshu, waxa uu ina leeyahay above ayaan isugu kaageynaya, yani formulada waxay la mid tahay equal sum isugu kaagee above waxa sare. marka labada kaas moodaya in amase uu inoo xisaabinaya, marka waxaan leenahay above ka daa waxaad isu kaageysaa right. markanu right niri 0 buu inoo soo qoray, sababtoo ah wax right ah ama midigta jooga oo xaggan inaga xigaa ma jiro oo uu isugu keengeynaya dee column iyo row ma jiraan, marka waxba inagama xigaa xagga 0 weeyaan. laakiin haddaynu doorano left right aan bedelno kabacdi aynu ku qorno halkaa left dhinaca bidixda tirooyinka xiga isugu kaagee isugu kaageynaya, laakiin kuma jiraan lambaraanta oo iyaga waxaa loo yaqaanaa bullets. casharaanteena hore aynu kusoo dhiganay bullets baa iyaga loo yaqaana, inooguma soo jireen iyagu. midkan saddexaadna aynu eegno sida halkan table layout, table tools, layout ka dooro kabacdi formula left waa inaad halkaa ku ahaataa. marka waa inaad iska hubso waxaanaad bahleynaysa left mise right. left ida kabacdina okay baad leedahay, isugu kaageynaya. halkaa haddaynu ka bedelno maadada wadarta, halkaanu ka bedelno kabacdi aynu ka dhigno hal maado oo kala tusaalahaan waayahay. maadooyinkan bedelna waxaa tan taasoo kale ka dhig, tanna saasoo kale ka dhig, masaabo ka dhig baad tusaalahaan. row cusub baynu samaysanaa. marka hababkii mid kamid aynu ku sameynaynu soo baranay waxaa kamid ah inaynu taabano tab. xagga waxaanu gelinaynaa tusaalahaan wadarta guud. wadarta guud baa loo baahan yahay. xagga baynu leenahay dad buuladana waad soo raacin kartaa haddii ay u baahan tahay kala tusaalahaan. waxaan isu geynaynaa markaa iminka habkan saddexdan arday, yani maadada soomaaliga inta la keenay in xagga ka eegnaa, carabiga inta dhammaan ay ardaydu wada keeneen, ingiliishka iyo maadada xisaabta. marka arday maaha, iminka waxaan isu geynaynaa tusaalahaan maadada xisaabta, yani si kalena waad u dhigi kartaa, waxaad oran kartaa ardayd maadada isugu hoos dhigi kartaa, laakiin inagu waxaanu rabanaa inaynu above isticmaalno. iminka waxaanu dooranaynaa halkaanu rabno in jawaabta nooga soo baxdo, kabacdi layout baad tegaysaa, formula dooranaysaa above waxaa sare isugu kaageeyaa buu kuleeyahay. sababtoo ah halkaa aad u baahantahay inaad dhigto waxaad dooratay khaanadaasaad dooratay si ay jawaabtu kaaga soo baxdo. khaanadana lambaraanan baa ka sareeya, waxba kama hooseeyan sida muuqata. marka sababtaasuu inoo leeyahay above mar walba inoogu soo tuurayaa, ama left inuu haddana dooranay kaa dooratida muu kuu soo saaraya. formula kabacdi above way dooran tahay isugu kaageynaya. layout formula above ha ku ahaato. okay. iminka halka haddaynu ka dhigno tusaalahaan left haddaynu ka dhigno wuxuu isugu keenkeenayaa 1 2 3 intaasuu isugu keenkeenayaa. haddaynu right ka dhignana wuxuu isugu keenkeenayaa maxay 0, waayo waxba xaggan kama xigan. haddaba above-taynu ugu day waxaynu tusaalahaan u saxnay 80 kaasaynu u saxnay. waxaynu doonaynaa 200
68 iyo 52 inuu isku keengeeyo oo jawaabtuna xagga sare ka soo baxdo iyadoo waxaad dooranaysaa formula kabacdi left buu ku leeyahay waxaad ka dibinaysaa kabacdi waxaad tiraahdaa below okay see iskugu keengeyn kuwaas iskugu keengeyn laakiin waxa iskugu keengeeyay kuwan ayaa iskugu keengeeyay marka hadda waxaan sameynaa hadaba dhinaca midigteen xisaabinayna waxaan isku soo geynaynaa saddexda carabiga English iyo xisaabta marka waxaan u baahnaa inaan imika right isticmaalno marka waxaan tegnaa sida caadi ahayd formula kabacdi imika nooma qorno inaga qoranayna waxaanu leenahay equal sum marka waxaad qoraysaa qowska inta furtid right baad ku dhex qoraysaa meesha dhinaca midigta kabacdi waxaad leedahay okay marka saad aragtid jawaabtu way noo soo baxday marka waxaad xasuunaanaysaa uun xagga midigta adiga gacantaada ku qoraya numberka hadii ku soo celino formula kabacdina equal baad leedahay kadib waxaad taabanaysaa sum dadana right baad ku dhex qoraysaa labada sakalood kadib halkaas aad okay ka siinaysaa marka mar walba waxaad xasuunaanaysaa waxay noqonaysaa inaanad ka tagin maxaan ku raadayay halka right aad ku qoraysid marka saddexdaas imika isugu keengeeyay cashirka noogu xigaynu qaadan doonaa haddii la yiraahdo marka midabayntii baynu gelaynaa ama kalarka tusaale ahaan waxaanu sameynaynaa qaybaha maadooyinka iyo amba intaas sare magaca waxaas ku qoran midab baynu siinaynaa soo helaad gelayso kabacdi home kali kadib waxaad timaadaa halka daasada yar ee ku taalo groupka daasada ay ku jirto deetana midabkaad baan halka ka dooro saasa sameynaysaa waayahay marka midab alaala midabkaad u baahan tahay tusaalayaal ma ku bixinayno haddii la yiraahdo waxaan ugu xigay kalamka oo dhameystiran imika waxaynu ka tagnaa qaybta wadarta guud inta natiijooyinka lambarada waxaa inagu qoran yihiin waynu ka tagnaa marka inta kale highlight saarana kabacdi isla halkii groupkii paragraph daasada yar baynu soo furanaa midabkaynu u baahanaynu siinana waayahay midabka markaynu siino waliba waxaan dooranaa midab farta ay ka yar muuqan karto oo ay kasoo bixi karto fartu marka midabaantan oo dhan kiyaad u baahan tahay iska dooranaysaa way ka casanka inoogu daaya waxaynu ku xisinaynaa halkan kale maadada naf Soomaaliga soo helaad garay kabacdina waxaad timaadaa isla daasada ku soo noqo share soo furo midabka dooro imika way huruuda kabacdi haddana carabiga inoogu xigay saasaan ku wadana haddii la yiraahdo haddana Englishka marka waxaan tegaynaa marka waxaad joogaysaa marka hore groupkan home-ka tabka home-ka groupkan paragraph-kan kasi ay noo dhex taala daasadu marka daasada isha soo furnaysa halkaas aad midabka u baahantay kasoo gashanaysaa haddii ay yiraahdo asaas noqonaysa insha Allah waxaan inoogu xigaysaa haddii la yiraahdo markaanu maadada xisaabta saarno midabka qaybta wadarta marka iyada soo helaad garayso kadib waxaad timaadaa halkii ay daasadu ku qornayd kabacdi midabkaad u baahantay waad saaraysaa waayahay marka imika saas inoogu dhanta haddii la yiraahdo marka inta waxa ku xigaysa haddii aad u baahan tahay khaanad kaliya imika tusaalahan halka ay ku qoran tahay lambar 45 hadaynu u baahanahay 45 oo kaliya dad highlight ka saaraysaa kabacdina halkaasi ayaad midab gaar u sameyn kartaa xagaasina inoogu joogaysaa maanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh